بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. طبعا dhamaanteen waan jecelnahay inaan hanti aan yeelano nolol wanaagsan aan dhisano hantida rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa bixiya adoonko doono ayuu siiyaa balse waxaa lama huraan ah shakhsi walba hanti raba inuu dadaal fara badan sameeyo tawfiiqdan waa min indillahi subxaanahu wa ta'ala muuqaalkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa oo ku falaqaynaynaa talaabooyin aasaasi waa dhisidda hantida. Roberto Kiyosaki waa qoraaga buugga caanka aabbaha hodanka iyo aabbaha faqriga ah oo markii ugu horeysay la daabacay 1997 wuxuu sanado badan ku bixiyay barashada sida lagu noqdo hantile laguna gaaro darajada hontinimada iyo sida loo aasaaso hanti dhab ah iyadoo laga soo bilaabayo meel libera. Roberto Kiyosaki wuxuu bixiyay 9 mabda ama 9 talo oo aasaasi u ah dhisidda hanti fara badan. 9kan talo waxay si gaar ah u anfacayaan shakhsi walba hamiya inuu hanti badan kasbado. مبدأ كواد إن تفهمتوا فرقي ودحيا أنت ما قلت ده يواجبات كماليات كسارا مبدأ وفرها وضنت النمضاء وحا مهمة إن مركورات فهمتوا فرقي ودحيا أنت ذات الشخصيات ولا هاي يواجبات كثيرة شخصيا كسارا حنتدا ووحولي بادية الله هاي أو قيمة وكر وكعية وقت كدب أما أتكهري صدقلي جوكتا سيدا رولولكا سامية قريها ديسن وتجارك كغادنيسو كان عسيدا يوحي لمتكا waajibaadkuna waa waajibaadka maaliyadeed ee adiga lagugu leeyahay ee aad sida joogtada u bixiso sida kirada guriga, korontada, biyaha, shidaalka gaariga iyo deymaha kale. Kiyosaki wuxuu talo ahaan u soo jeediyay inaad kor u qaaddo hantidaada aadna yareyso waajibaadka maaliyadeed ee lagugu leeyahay adigoo raacaya xeeladahan soo socda. xeelada koowaad lacagtaada ku iibso waxaad dakhli ka heli karto. lacagtaad ku shaqayso intaadan wax kale ka bixin marka hore waxaad meel ka dhigtaa 10% oo aad ugu talagelayso inaad kaydiso marka ay lacag fiican ku noqotana mashruuc aad gashato. tusaale bishii waxaad ku shaqaysaa $500 waxaad meel ka dhigtaa 10% inta kale soo hartana ku bixi waajibaadka maaliyadeed ee lagugu leeyahay. okay 10% haddii aad kaydiso bil walba waxaa kayd ku ah $50 dhowr bilood kaydso lacagtaas kadibna waxaad gashataa mashruuc qofaad si fiican u taqaano waad ku kalsoon tahay u wado. mashruucaas ha aado dukaan bagaash carruur dhar lagu gado ama waxyaabo kale almuhim meel bil waliba dakhli joogta ka soo geli karo inay ahaato. marka sidaas waxaad ku haysataa bil walba 2 meel oo aad dakhli ka helayso. mid waa shaqada caadiga aad ka shaqayso midda labaadna waa meesha aad lacagta ku darsatay. faa'iidada aad ka hesho mashruucaad maal gashatay ha cunin ee waxaad sii gelisaa mashruuc kale. sidaas waxaa kuugu sii badanaya ilaha dakhli ee ku soo gala. mar walba ilaha dakhli ee ku soo gala ay bataan waa mar walba aad hanti badan kasbato. xeelada labaad yaray waajibaadka maaliyadeed ee ku saaran. si aad u yareyso waajibaadka maaliyadeed ee ku saaran waxaa lama huraan ah inaad isku beesgareyso dakhliga bishii ku soo gelayo iyo midkaad bixinayso. markaad bishii ku shaqayso $500 waxaa waajib kugu ah inaad samaysato nidaam aad ku bixinayso lacagtaas. hana iloobin inaad 10% kayd aad dhigto. waxaa kaloo muhiim ah inaad ka fogaato deen oo dhan sababtoo ah shakhsiga waxaa faqriga u horseeda waa deenta badan. xeelada saddexaad waajibaadka maaliyadeed ee lagugu leeyahay urug ama u bedel hanti aad adiga leedahay. mararka qaarkood waajibaadka adiga lagugu leeyahay waxaa loo bedeli karaa sida hanti adiga aad leedahay oo kale dakhliina aad ka helayso. tusaale inaad shirkad heshiis aad la gasho kadibna ay ku maalgeliyeen mashruuc aad is leedahay faa'iido badan ayaad ka heli kartaa. sidaasna shirkadii aad bil waliba lacag u qorsheyso adigana mashruucaas uu ku noqdo meel dakhli ka soo gala. mabda labaad barashada sida lagu kasbado lacagta. Mr. Kiyosaki wuxuu xooga saaray faa'iidada ay leedahay in la barto arrimaha dhaqaalaha iyo hagaajinta xirfadaha lagu kasban karo lacagta sida akhrinta buugaagta ka hadla dhaqaalaha iyo ka qayb qaadashada aqoon isweydaarsiga iyo tababarada ku saabsan dhaqaalaha. aqoonta maaliyadeed waxay ka caawinaysaa inaad si fiican u maamusho lacagtaada iyo inaad ka faa'iidaysato fursadaha naadirka ah ee suuqa. hababka ugu wanaagsan ee lagu kubcin karo hantidaada waa inaad kordhiso aqoontaada maaliyadeed. mar walba aqoontaada dhanka dhaqaalaha ay ku ziyaado waa mar walba ay sii kobcdo awooddaad ku dhisi lahayd hanti fara badan. mabda saddexaad inaad yeelato hadaf maaliyadeed iyo qorshe aad ku xaqiijin karto hadafkaas. Kiyosaki wuxuu talo ahaan u soo jeedinayaa inaad yeelato hadaf dhaqaale oo aad rabto inaad gaarto. tusaale inaad degsato qorshe ah sanadkan waxaan rabaa inaan soo xareeyo $25,000 insha Allah kadibna aad ku dhaqaaqdo fulinta qorshaas. mabda afraad inaad iskaashi la samayso dadka ganacsiga ku wanaagsan. inaad la saaxiibto dadka guulaha ka gaaray ganacsiga iyo dhaqaalaha
waxay kaa caawin kartaa inaad ka hesho khibrad badan iyo aqoon dhanka ganacsiga ah. Sidoo kale inay kuu siyaado xirfadaada ganacsi iyo inay kugu dhiirigeliyaan inaad hadafkaagaadan ka quusan. Mabda'a shanaad, iska ilaali cabsida badan iyo damaca badan. Kiyosaki wuxuu kugula talinayaa inaad si caqliyeysan ugu fikirto mar walba oo khatar ay ku soo wajahaan, oo aadan ogolaan cabsida iyo damaca badan inay xakameeyaan go'aanadaada maalgashiga. Go'aamadaada dhaqaale waa inay ku saleysnaadaan xog dhab ah iyo cilmi baaris dhammaystiran, halkii ay ku hogaamin lahaayeen damaca iyo cabsida. Mabda'a lixaad, maalgashiga naftaada. Kiyosaki wuxuu talaan u soo jeedinayaa in shakhsiga uu maalgeliyo nafsadiisa isagoo kor u qaadayo xirfadiisa shakhsiyadeed iyo xirfadiisa shaqo, sida awooddiisa hogaamiyenimo iyo wadaxaajoodka dadka kale. Markay ka wada hadlayaan umuro ganacsi, shakhsiga inuu naftiisa horumariyo waxay ka saacidaysaa inuu kordhiyo fursadiisa guusha ee ganacsi. Mabda'a toddobaad, inaad abuurto dakhli joogto ah. Kiyosaki wuxuu kugu dhiirigelinayaa inaad samaysato meel aad ka hesho dakhli joogto ah adigoon wax shaqo ah qaban, sida inaad guri aad gadato kadibna aad kirayso bil walban lacag aad ka qaadato, iyo sidoo kale inaad mashruucyada yaryar aad ku darsato lacag kadibna bil walba aad ka qaadato faa'iidada lacagtaas. Dakhliga noocaas oo kale ah wuxuu ku siin karaa xorriyad dhaqaale iyo fursad aad si degdeg ah ugu noqon karto hantiile. Mabda'a sideedaad, maalgashiga hantida maguurtada ah. Kiyosaki wuxuu aaminsan yahay in maalgashiga hantida maguurtada ah ay tahay waddo fiican oo hanti lagu kasban karo. Mabda'an wuxuu wax yar ka duwan yahay mabda'i toddobaad ee aan ka soo hadalnay, kaasoo ah inaad abuurato dakhli joogto ah oo degdeg ah. Mabda'ani wuxuu ku salaysan yahay maalgashiga muddada dheer, sida inaad dhul gadato dhowr sano kadibna dhulkaas aad sii gado si aad ugu hesho faa'iido fara badan. Mabda'a sagaalaad oo ah mabda'a ugu dambeeya, mabda'a dulqaadka iyo adkaysiga. Dulqaadka, sabarka iyo adkaysiga waa furaha guusha dhaqaalaha. Hanti fara badan si degdeg ah laguma kasban karo. Inaad hanti badan aad kasbato waxay u baahan tahay waqti iyo dadaal dheer. Waxaa lama huraan ah inaad u soo adkaysato fashilka iyo khasaaraha kugu dhacaya, sababtoo ah waad aragtay cunuga yar markii saas loo dhalo hore kama ordo. Sidaas si lamid ah ayuu ganacsigana yahay. Waa inaad sabar badan muujisaa, waa inaad wax badan dulqaadataa, waa inaad dadaal badan aad samaysaa, waa inaadan isjiibin inta aad hadafkaaga ka gaarayso. Guul ayaan idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum.